madaxweyne muuse biix cabdi oo dhowaan kormeeray barashada magaalada Hargeysa kaasoo rababkii maalmihii ugu dambeeyay ka da'ay magaalada Hargeysa waxyeelo gaarsiiyeen ayaa injineerada mashruuca berbera corridor ku amray inay tagaan barashada Hargeysa oo dayactiraan isla markaasina qiimeyn ku sameeyaan farsamada wadadan qaabilsan koridorka oo dhan qalab badan oo waan arkay dad badan oo aqoon leh maanta uu ku jooga bridge-ka soo eegay dhibaato ma qaban laakiin ciidii wax qaaday in bilska soo baxay sibil hore waa dhowtaan ku xidhnay midna uu iska xajay midna uu kiina uu qaatay waxaad yeeshaa maanta taga oo adiga dadka badan kula jooga bridge-ka halkiisii iyo si aamin ah waa u dhistaa oo niyo ka faa'iideysan teelkada yaarta kuwa kale hadii joogtaa shirkadahan wixii laga faa'iido ay dirisna wixii ay ka gelin karno waayo uu arkaa roobka xoog bay keeneen cimiladu isbedelaysaa كل واحد له صوب حياة تبرت إنه ويرت لكن واحد رقى مانتا قلنا فرصة إنجنير هذي ناس يقول وضده حاجة إنه يكون حلقة تو حاجة يسمى الشديد كوا نسمعه بها يكون شو قلنا ضيع ترتاح وأنا مسكب حنا بعد تعالوا كتوجع كوا شو قلنا اعتبر الضياء مارون هاي كوا كلام أنا نوقف يستانوا حلايا أنت واحد يفضلك أو نبى صوبها waxaan aad iyo aad u kalsoonahay haddaynu isu geyno madaxii mustaqbalka muruqeena tabarco talaas caarood iyo ceergaabo tu walba iska leh tiijo mutin waa la iska soo leeyahay